ilmaha jira 4 ama 5 bilood waxaa jira caqabado keeni kara inuu ilmaha si xasiloon u hurdi waayo oo uu hurdo fiican seexan waayo. Arrinta koowaad, ilmaha siduu u hurdo fiican inuu hal mar hurdada ka soo kaco weliba waqtiga dambe ee habeenkii. Arrintaani waxay jiri kartaa muddo dhan 2 ilaa 4 asbuuc. Waxaa keeni kara xaaladan, waxaa keeni kara inuu ilmuhu gaajo la kacay maadaama ilmuhu marka ka dambeysa uu korayo wuxuu u baahan yahay caano badan waqti ka sii dambeysa. Arrinta labaad ee keeni karta in xanuun uu la toosay sida qandho ama hargab ama infekshanka dhagaha ku dhaca. Arrinta saddexaad, deegaanka ama goobtii hore uu seexan jiray ilmaha oo laga bedelo. Xalka arrintan maxay tahay si aad adigana u nasato ilmahana u seexdo? U samee jadwal hurdo sida waqtiga sariirta geynayso, waqtigaad caanaha siinayso iyo xilliga qubeyskiisa. Markuu ilmaha soo kaco hubi inay gaajo hayso kadibna nuuji. Ilmaha dib u seexi adigoo sameynaya inaad ilmaha dhinac u seexiso oo aad ruxdo adigoo dhabarka ka salaaxaya. Ku dadaal qolka inuu yahay mid iftiinkiisa badnayn. U salaax fooda sanka adigoo kor ugu salaaxaya. Salaaxida iyo dhunkashada qayb ka mid ah wajiga ilmaha waxay ku dareemaan deganaansho iyo in la xanaaneynayo. Si fiican u nuuji oo hubi in caano ku filan u qaatay. Caqabada labaad ee ilmaha ku keenaysa hurdo aan xasiloonayn waxa weeye in ilmaha uusan seexan hurdo fiican maalinkii. Markasta uu ilmuhu soo weynaado hurdada maalinkii way yaraataa. Haddii ilmuhu uusan seexan maalinkii hurdo fiican balse uu habeenkii seexanayo hurdo fiican, taasi waa koritaanka ilmaha waana si wanaagsan. Balse haddii ilmaha maalinkiina uusan seexan hurdo fiican, habeenkiina uusan seexanin hurdo ku filan oo uusan xasilooni dareemeyn, ilmahan aad buu u daalan yahay wuxuuna u baahan yahay inuu maalinkii helo hurdo ku filan. Asxaabtayda sharafta leh, waxaan idinka codsanayaa inaad booqataan profile-kayga oo aad igu sharaftaan inaad subscribe ii saartaan YouTube-ka profile-ka saaran.